baan maaragtay ugu mahadcelinayaa waa idaacadayadii waxaan isleeyahay waaba idaacadiinii baan leeyahay annaga haddaan xoolo dhaqatada nahay marmar badan oo aan daawanayayna waxaan iyadoo geel iyo barnaamijyo ka samaynaysa baan fiirsaday marka waxaan dhihi karaaba waa idaacadayadii annaga xoolo leeyahay haddaanu nahay idaacadayadii weeyaan dhihi karaaba hadduu geesa soo yar godan yahay uu gadoobada giir ku leeyahay waaban garanno gaatiyow cilin waa guryaan nahay hadduu hayishiyo horaadada lulo uu nahaybsado yirban lehelyo wallee hadilow wuuba nahayaa hadduu dabadiyo dambeedka cad yahay wuu dar madhan galo raggii diriirsii oo isdiligaad bal haddana kuye sidii dhaydii daayinka lahayd looga dhami jiray diinow cagaweyn mawdhan siinaa bal haddana kuye caana saafiya nimcada eebe oo ku daaday deegaanka meegaagle oo qiyaas ahaan 5 kiiloomitir dhinaca galbeed uga beegan degmada Buurteenle ee gobolka Nugaal deegaankan iyo guud ahaan degmada Buurteenle waxay caan ku tahay cad iyo caano oo abaarta oo jirto halka cad iyo caano ka helayso waa degmada Buurteenle xilligan waarooriyo hore waxaana socdaal gaaban ku tagnay deegaankan oo ku xarooto looda degmada Buurteenle caanateelka ka waxaana munaafacaadkeeda iyo saameynta isbeddelka cimilada aan ka wareysanay mulkiilaha looda Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax wuxuuna noo sheegay in caanaha looda aad loo jecel yahay isla markaana caanaheeda loo ibgeeyo degmada Buurteenle iyo deegaanada hoos yimaado aniga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax waxaan ahay nin looda dhaqi jiray wax badan baan looda ilaa hadda waxaan hayay asalkayga hore loolay baan ahaa loo baan ku koray laakiin loodan waxaan tabcay ilaa dhowr iyo 20 sano baan haystay caanatel bay ahayd magaalada iyo wadankan oo dhan waa laga yaqaanaa looda Cabdiraxmaan Ilweyn baa la yiraahdaa loodaas si fiican bay caanaheedu magaalada u taqiinay oo u baratay markii geela laga bixiyo $1 iyada waxa laga bixin jiray $1 $2 ama $1 iyo 8 فليس meelahaas laga bixin jiray hadda way dhalaysaa abaar bay ahayd markay urgoon hadda dhali lahayd loodii hadda dhali lahayd ma aysan urgoon ilaa abaar bay ahayd marka loodii markay naqay barwaaqadii ku urgoota hadda gugi dhaweyd bay urgootay hadda dhalaysaa diraacdan aduu 2 bilood ka bacdi bay dhalaysaa baan u maleynayaa ilaa 3 bilood sax ugu dambeeya ilaa 3 bilood buu ku dhalaya hadda dhowr neef baa ka irmaan waaniga hadda saakalisay loodu de faa'iido u leedahay wadanka caanaheedu waa daawo waxay u daawo yihiin gaaska u daawo yihiin waxay u daawo yihiin neerfaha u daawo yihiin waa looda caanaheedu qofku si kasto u kacsan yahay oo jirkiisu u kulul yahay markuu caanaheedu cabo hurdu la dhacaya u daawo yihiin qofka caafimaadkiisa xataa daawo u yihiin cabitaankooduna waa wax caloosha sida geela iyo ariga iyo kala ma aha وعانا خفيفة قفك مركي وعب كوبيدايا دربديبا كوبيدايا وشركيسا جليا إسلا مركي بعلاش وكجود بيان مركا دي كل واحد يبغى هنتهي هذا خرومرين بيبغى هنتهي ما دام العمالة دي يثبت الشيء ونلاشي حواليه وأنا خطر كوتشرته وإن راشين لسينا يصير تسكي لوبي لما هاني واحد لو جوهر مرجع ربطة واحد ربطين لا ملاه سمايو واحد ربطين عوص الله بيرو بيربطة واحد ربطين جلي لو بيرو biyo badan oo wax loogu beeray rabtaa iyo silig loogu wareejiyo bay rabtaa dhirtii maadaama dhulkii la yiri waa xaalufaya dhirta yaan la jarin mar horaan oodi lahaa xirmooyin waaweyn baan u samayn lahaa waxaan diidayaa dhirta inaan jaro waxaan isleeyahay siliga ila aad silig heshid xirmaha samayn marka siligiina lacag badan weeyo oo de كل مرة كان وانكري واي فائدة أولى هذا ده واحد سوى كوبي كرمها فائدة بدن بيقول هذا هيلب كذي صبغ كذي عن هذي دبي كذي وحوله كله وحامن أوران كرا أنو كله تذكر إلى ما قام لكن أنا واحد أجا هيجيل نوعية شيء لا نوعية فائدة اللي بتشبه له ده فائدة بدن إذا أنا دبي رو أنت هلك وينها وفوفسد لو أن هلك وفوفسد بعاو متبقي إسكا إيمانية markaas kala xareysanaysa geeli laakiin maanta oo dhan la daba socdo rabaa geeli wuxuu joogaa meegagleex waa caanatel waxa caanaha laga gadaa degmada Buurtile suuqa faa'iido badan buu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed geelu caanaha iyo
hilibka idka waaba dadku waaba caanaha ugu dawa badan dadku hadduu xanuunsado malaariya dhaxanta ay ku dhacdo waa caanaha ugu dawa badan qofku uu qurqurin karo waxay dhahaanba muhiimadda markaan ka hadalno waxa nin lagu furan kara geelow nin tiir lagu soo xiray iyo nin gabar gaduudan inta la tegey la yidhi 10 ama keen ama siida bulshada Soomaaliyeed faa'iidadaas Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurteenle.